Manchester United versus Burnley live in Old Trafford. ciyaar aad u xamaasad badan oo ka dhacday garoonka in Old Trafford. ayaan falqeynaa Manchester United ay free tirtay. Manchester ayaa goal loo ogolaaday. Casemiro ayaa goal dhaliyay. laakiin balse waxaa iska dhigay an goal ayay noqotay an goal. difaacooda ayaa ku laabay birta ay ku dhacday markay soo laabatay. Casemiro ayaa heeda xoogan ku tuur goolka oo Burnley balse goolkiibaha markii birta ay dhacday difaac ayaa iska dhaliyay. ciyaarta ay hadda marayso 1-0 Manchester United 1 Burnley 0. laakiin ciyaaryahan Burnley ayaa weerartamay Bluma ay soo sharaxdeen aad ay isku dhibtiin meel qatar ayaa lagu soo tuuray. Frost ayaa goolka dhaliyay Manchester United straight-aha Burnley. Burnley kabteeda lama dhashan karo. Bismillah nacam midid ayaa lagu soo tuuray. Manchester United 1 Burnley 1. hadda Manchester United ayaa xarootay dhaalod ayaa xarooday. Manchester United goal galay ayaa la hormartay dan Mbowa ayaa goal dhaliyay. Digaawo dhaalod ayaa soo xarooday geeska dhinaca bidix ayuu soo xarooday. Mbowa ayaa dhaliyay goolka. Manchester United 2 Burnley 1. Walter ayaa fargacan soo tuur goolka Manchester United qatar ay galeen war isku celceli. Manchester hadda la ibraajiyay. Walter Bulon uu ku tuuray fargacane war isku celceli ayaa laga dhaliyay. heed ayaa kiibaha uu soo tufay laakiin bas nasiib darro ee difaacana ayaa ku dhaliyay. maana ay sii dhacday. Manchester United 2 Burnley 2. Amad Diallo ayaa xarada jinaaxa lagu jiitay balse faar ayaa la aaday. waxaa la xaqiijiyay penalty Manchester United ayaa la siiyay. go'aanta ayaa la sugayay faar. referee wuxuu dhahay garsooraha oo faaray muxuu dhahay penalty ayaa loo galay penalty maadaama ay diinta jinaaxa lagu taabtay. waxaa uu soo istaagi doonay laakiin balse kabtankooda Fernandes laakiin wuu sirtay laakiin waa laga qaban jiray goolaha uu raacay. laakiin balse gees ay birta u saaray laakiin goolaha uu raacay laakiin way ka dhalatay. waa xilli dambe waqtigii dheeriga iyo Manchester penalty dhashaday. Manchester United 3 Burnley 2 full time. laakiin Manchester United aad u dabaaldegtay si ay ku final qaadan camal.